afhayeenka gaashaandhigga oo hogaaminaya wafdi saraakiil ah oo maalmihii lasoo dhaafay ku guda jiray booqashada furmaha ay ku sugan yihiin xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa booqday difaacyada ay ku sugan yihiin ururka 241 ee guutada 24aad ee Khalid bin Waliid oo ku sugan degmada Xardheer ee gobolka Mudug. Wafdigan waxaa soo dhaweeyay taliyaha ururka 241 iyo saraakiisha ururka, waxaana ugu horreyn goobta ka hadlay taliyaha ururka Xuseen Mu'alif. Digaan ballaaran ee ka socdo wasaaradda gaashaandhigga oo hogaaminayo afhayeenka wasaaradda Macalin Abuukar. runtii wasaaraddan hadda waxaa hogaaminayo wasiirkii Xardheer wax ka xoreeyay wasiir Axmed Macalin Fiqi. waxaan ka rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo mas'uuliyaddaas in Ilaahay la garab galo, annagana waa garab taagannahay. inuu ka soo dhalaalo waxa laga filaa lagu arki jiray oo hore ugu taagnayna waa rajaynaynaa oo ah difaaca dalka iyo la dagaalanka khawaarijta intaba. Macalin Abuukar aad baan kuugu mahad celinaynaa booqashadaada sharafta leh. waa kaa guddoonnay salaanta aad nooga wada wasaaradda oo wasiirku uu hogaaminayo. waa kaa guddoonnay salaanta aad nooga wada guud ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed taliskii dhexe. insha Allah waanadaada iyo kalimaadkaadana waa ku camal fali doonaa, waana dhaqan gali doonaa. hadal jeedinta taliyaha ururka kadib waxaa goobta si wada jira uga hadlay afhayeenka gaashaandhigga saraakiisha la socotay iyagoona ku dhiirigeliyay geesiyadan halkan ku sugan halganka ay kula jiraan khawaarijta. waxaan hortii la dagaalameynaa cadowga Ilaahay waa in caqiido naga ahaato oo aysan naga ahayn war wax la isku hayo ma aqaan daa tiraad halisaad ku galaysaa. dadka la dagaalamay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu dhahay yakhruju fi aakhir zamaani qawmun ahdathul asnaan. aakhir zamaanka waxa soo bixi doona qowm dhalinyaro ah caqligooda u liito dabaala ah sufahaa ul ahlaam oo ku tilmaamo waxay ku qowlayaan qowlka nabiga kaleey salaatu wasalaam waxay leeyahay nabiga yiri ilaahay ku haya yad'uuna ila kitaabillahi wa laysu minhu fi shay'in. kitaabka ilaahay sheegana waxna kama haystaan sababtoo kitaab ilaahay nin haysto oo diinta islaamka ku dhaqmaayo oo waman yaqtul mu'minan mutacammidan iyo aayaadka kale oo tirada badnaayo dhiigga muslimka ka hadlaaya qof aaminsan Xardheere ama meel Soomaali joogto ayaan qarax keenay dad ku dili lahay. dhalinyaro inaan la hergelin, inaan la hoyan waajibaadka madaxdu ay bixinayso in loo dhigan nuglaado. cadawgu waxaan ognahay meelahan bacadka habeysadiisa ninka yiraahdo aan ka kalluumaystaa iyo soo dacab shacabka inuu yimaado rida armaankaana ka jiitaa ratiga biyajiidkaana ka wataa dadkii gacmahooda ku daahiri lahay waa adinka. dalkan ilaa ma oo ka xuroobo waxna siina la yiraahdo nooma yaalan. dhammaanteen horta aan iscafino, hal uur aan yeelano, hal niyad aan yeelano. cadawgeenu waa hal, waa khawaarijta al-habaab. cadow kale ma lihin, isagaas aan la dagaalano. magaca ilaala qaran oo quruxda badan lehna mid jiro oo jooga inuu noqdaan rajaynaya. Saadaam Cabdulla Siyaad, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, degmada Xardheer, gobolka Mudug. Stand up.